mootaan watay mootadeeda waxay ku baakineed baabuurka saarifka hortiisa masaajidka markaan ka soo baxay marka baabuur kaloo yar oo baabuurtan yar oo bokiska baabuurkaasaa meesha soo gala baabuurka marka darawalkiisii ka degayo iyo anoo masaajid ka soo baxay darawalkii aan la hadlay waxaan reenay raallahow mootadaas meel kale oo aan ka baxa malaane yaa intaada ii bannay aan soo baxay gadaalow u soo baxay waa uu ii banneeyey mootadeedii aan aaday aniga mootadii aan la soo baxay mootada markaan la soo baxay asagana meeshiisa uu ku laabtay sidii aan ku soo baxay waa uu sheekeynaa markaa fiirisid muuqaal ahaan isagu waa caafimaad qabaa laakiin marka lagu dhahaayo alla dilo unbaa dhinto waa kan qofka ceeshkiisa wax yar ee dunida ku qoran tahay wax kasta oo agtiisa ka dhac wuu noolaan doonaa gaariga dhan ee qarxi doono ee bulshada lagu dhibaateyn doono ayuuba isaga gaadiidkiisa bajaajka hor dhigtay dabadeedna salaaduu galay waa goob bulshada ugu badan xamarweyne iskugu timaado waa wado loo ogol yahay gaadiidka bajaajka inuu isticmaalo waxaan ku celin doonaa marka dib bilawgii muuqaalka ayaan kula wadaagi doonaa muuqaalkan eeg muuqaalkan waxaa hadaa kuugu sheegay laba gabdhood oo aad u da-yar inay halkan ku jiraan oo ay gubanayaan weliba goobjoogo ka mid ahaa dadka halkan igala hadlo wuxuu ii sheegay in la caawin waayo gabdhahaas cabsi laga qabo in dabkaasna uu saameeyo qofka caawinayo si lamidana baabuur kale oo qaraxay wado baabuurkan marka qaraxa gabadhan eeg marka gabadhan waa labadii gabdhood mid ka mid ah ilaahay u naxariisto saa u jeediinba waa gabar yar aad u da-yar nolosha curdun u ahayd weliba gacan ka xaq daranna maanta ku dhimatay gabadhan yaa dhalay marka sawirkan eeg waa korneel xasan dhicisow taliyaha ciidanka booliiska hirshabeelle marka hore isagaan u tacsiyeyno si lamidana dadka dhibaatada halkan ay ku gaartay eheladooda qaybta hoose commentiga kuwa geeriyooday in ugu duceeyey kuwa dhaawacamayne inuu ilaahay caafimaad degdeg siiyo halkan ugu duceeyey sheekada marka waxaan dib kugu celin doonaa qofka tiisa dhamaata unbaa dhinto halkan waa goob maqaaxiya waa la iskugu yimaadaa waana wada marin u ah xitaa loo ogol yahay gaadiidka bajaajka ninkan wuu sheekeyn doonaa marka wuxuu ka sheekeyn doonaa bilaa ilaa iyo dhammaad muuqaalkiisaan daawan doonaa waxa aad ka fahantidna qaybta hoose commentiga igula wadaag muuqaalkaana qabo la sii wadaag saaxiibadaada kale adigu waxba kaama dhibi doono sheekadeenana meel fog way gaari doontaa muqaayadaha dad badan baa ku dhaawacmay dad badan waa la qaado ku dhinteen masaajidka hortiisa dadkii dhoobnaa iyo wixii micnii wadada maraayay oo mooto watay ama bajaaj watay intaysan wax dhicin maqaayadda baabuurka isqarxiyo meesha lagu soo baakimay maqaayadda dhinaceeda masaajidka iyo maqaayadda waa iska soo horjeedaan masaajidkan galay aniga masaajidkan ku soo dukaday salaada markaan ka faaruqnay oo aan soo baxnayna baabuurkan meesha ku baakinay maqaayadda albaabkeeda marka maqaayadda iyo masaajidka inta u dhaxaysana waa wado yar oo baakina oo baakinka masaajidka iyo loogu talagalay baabuurkan saariftaa marka maqaayadda albaabkeeda dambe oo ku baakinay baabuurka u arkaa meesha ku baakinay markaan masaajidka markaan galaynana saarifa u ahay masaajidka markaan galaynana meesha ku baakinay masaajidka markaan ka soo baxaynana meesha ku baakinay masaajidkaan galnay waa dukanay salaadii aan dukanay masaajidkaan ka soo baxnay masaajidka aniga markaan saas aan uga soo baxay mootaan watay mootadeeda waxay ku baakineed baabuurka saarifka hortiisa masaajidka markaan ka soo baxay marka baabuur kaloo yar oo baabuurtan yar oo bokiska baabuurkaasaa meesha soo gala baabuurka marka darawalkiisii ka degayo iyo anoo masaajid ka soo baxay darawalkii aan la hadlay waxaan reenay raallahow mootadaas meel kale oo aan ka baxa malaane yaa intaada ii bannay aan soo baxay gadaalow u soo baxay waa uu ii banneeyey mootadeedii aan aaday aniga mootadii aan la soo baxay mootada markaan la soo baxay asagana meeshiisa uu ku laabtay sidii aan ku soo baxay maba gaarinba marka masaajidka iyo beerta nabadda maxay isu jiraan beerta nabaddaan maraya qaraxa markuu dhacayna maqaayadda ma hor yaala gaariga mise masaajidka maqaayadda albaabkeeda lagu sallaxay maqaayadda iyo masaajidkana saasay isaga soo horjeedaan macnaha wejiga hore oo maqaayadda maahan waa wejiga dambe baakin ay leedahay masaajidka baakin uu leeyahay oo baakinkaas wuxuu u dhexeeyaa marka maqaayadda iyo masaajidka inta u dhaxayso marka baakinkaas maqaayadda waxay ku leedahay albaab dambe ay leedahay
oo baakinkaas ku yaal masaajidkana waa ka soo horjeedaa marka baawarka albaabka saarifta waxaa lagu baakimeeyey albaabka dambe oo maqaayada lagu baakimo goobta markaas aad ka tagaysay sidee ahayd xaalkeeda sidoo ahaa anigu markaan ka tagay waxba kama dhicinba meesha maya dad badan baa jooga meesha ha macnaha xilligii qadadayba ahaydba maqaayada maaragtaa waa jaa salaada duhur markaasaa la dukaday 7 saac iyo 6 saacna waa xilliga qadada oo maqaayada sida aadka loo galo dabcan maqaayada kullay xilligii waxay aad qadada saan qiyaasay dad badan oo ku jira marka annaga dib u soo laabatay dib qaraxa markuu dhacay aniga dib waa u soo laabtaa jaa marka isla markiiba meesha ciidana xirtayba jaanis aan ku galno ma helin ba annaga bacriminta IVF waxay lamaanaha u fududaynaysaa inay ubad helaan alla ayaa bixiye iyadoo la isticmaalaya qalab casri ah isdiiwaangelintu waxay ka socotaa xarunta Marwa Fertility Center Muqdisho Taleex wixii faahfaahin kala xiriir telefoonada shaashada kaaga muuqdo